ciidamada Amisom waa nala joogaan wax badan ay soo qabteen ilaahay idankiis waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ah mas'uuliyadda amniga dalkeena waan la wareegi doonaa asagoo dalkuna uu xor ka yahay muxuu ahaay khawaarijta iyo inta ku heer joogta anoo ku hadlayo magaca golaha mar kale waxaan u tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii muxuu ahaay ku geeriyooday 29kii bishan October dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen zoonaha Zobe iyo Safari Hotel agaarkiisa dadkii meesha ku dhintay samri email Allah naga siiyo ayagana jannadii firdawsi Allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu ahaa ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad degdeg ah siiyo caalamka abeena weeytu waa u baaqnay in kaalmana la soo gaaro waana la soo gaaray waana soo socotaa qaarna waana soo gaareen sidoo kale dadka Soomaaliyeed inay isu gurmadaan bixinay tirada ugu badneed oo dad Soomaaliyeed ayaa dhiigna ku tabarucay isbitaalada deeqa fara badan muxuu ahaa la yimiday oo dadkii gaarsiiyay haddana wali way socotaa guddiga aan magacawnay ee gurmadka runtii waxay noo soo tabinayaan in maxaan ku raadayay dadka Soomaaliyeed dadaalkooda uu aad iyo aad u badan yahay sidaan u ballan qaadnay habeen dhaweeto ayaa naga dhaba October kale oo sidaan oo kale dib badan inaan soo marin ayaan ka shaqeynaynaa ilaahay idankiisa dii alla yiraahdo inta kadib dalkeenu marxaladu ka guuraya muddo uu ku soo jiray marxalad kale uu guuraya marxalad dib iyo qahar iyo karaamo dil iyo caqiidadii iyo cibaadadii ummadda ay lahayd oo lagu cayaaro qarannimadii iyo ummadnimadeedii oo maxaan ku raasuxun iyo suxun loola dhaqmo ayaan ka guuraynaa waxaan u guuraynaa gole ama meel barin nabad ah oo maxaan ku raadayay diinteennana aan u madax bannaano ku caabudano dadkeennana sharaftooda iyo karaamadooda aan ku ilaalino ayagoo isla jiro walaala oo gacmaha isaysto heshiisa caalamkana aan kula macaamilno wanaagaas aan gaarnay gobonnimadeenna afka qalaad sovereignty-ga lagu yiraahdo oo kaamil ah oo dhameystirnay ayaa waxayna ciidamada Amisom waa nala joogaan wax badan ay soo qabteen ilaahay idankiis waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ah mas'uuliyadda amniga dalkeena waan la wareegi doonaa asagoo dalkuna uu xor ka yahay muxuu ahaay khawaarijta iyo inta ku heer joogta shabaab oo goboladan dawlad goboleedyadan ku yaala muxuu ahaay gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed maxaan ku dhib ku haya iyo sidoo kale shabaab iyo maxaan ku yiraahdaa Daesh oo Puntland ayagana muxuu ahaay meelo kamid oo yar yar maxaan ku harsan oo ku jira intaba waa loo taagan yahay caawiye maalin kuwaasna ka ogolaan mayna in ay buuraha Puntland saarnaadaan kuwaana ka ogolaan mayna inay dhulka Soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadii meeshii maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawano la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankaan ay ku habsadeen una diideen dadka in ay maxaan ku yiraahdaa tacbadaan ilaahay idankiis waa ka imaanayna Soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaay sidii dadka Soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaan ballantii aan qaadnay ee ahayday Soomaaliya heshiis ah ayaan ku taaganahay astaanteediina waad aragtaan aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha galabta halkan ila joogaahay niyadda san iyo wanaaga in Soomaaliya hore u socoto ah iyo isku tanaasulka iyo ra'yi wadaaga iyo tala kala qaadashada iyo go'aan qaadashada waa ku bogaadinayaa runtii aad iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa sidaas ayaana idadiilo cusub runtii Soomaaliya ah ayaan arkaa inay u soo socoto sidoo kale caalamka Soomaaliya inuu kaalmeeyo jecel inuu garab istaago jecel waligii soo garab istaagnaane waana u mahad celinaynaa waana booqanaynaa safarada aan tagaynaa dhammaan dan cayiman oo la garanayo oo Soomaaliya dantaas loo raadinayo ayaan muxuu ahay u soconaa ama aan markaas mid diyaar oo soo helna ha noqoto ama mid aan wadadeedii furno oo biri dambe hadii alla yiraahdo imaanaysa ha noqotee dalxiis uma baxno meelo kale ma aadno haddaan anigu safro iyo madaxdaani hadday safartaba nin walba fariin aan ka midaysanahay ayuu sidaa oo caalamka uu kula macaamilayo oo gaarsiinayana adduunyada sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa kalsooni badan inay qabaan waa sheegnay meel dhexe oo lagu hakadoo la istaagaayo ma jirto shabaab iyo inta ka soo harto shabaab la diriraysaanahay kii af kula dirira kii suugaan kula dirira kii dhaqaala kula dirira oo ka joojiyay dhaqaalaha muxuu ahaay dawladda iyo ciidamada muxuu ahaay halgan ku jirana kaalmeeya
kii maxaanku ihahdaye macluumaad iyo information uu shabaabka og yahay iyo shabaab kalkaaliyaha shabaabka keliya maha dhibka waa shabaab kalkaaliyaha oo aan waxba ka duwanayn asigana mabda'a khawaarijta ay ku midaysan yihiin intaba dadka soomaaliyeed waa ku celinaynaa dad ay yidhaha maxaa saas u leedahay maxaa saas u tiri iyo maantoo nin ajnabi oo saas yirayaad warkiisa raacaysa maaha maanta xaaladda soomaaliya aan ku sugannahay meel dhexe oo la istaago oo laga bataceeyo ma taallo soomaaliya maanta waa shabaab iyo nin shabaab ama gabar shabaab la diriraysa waay wax kale oo meesha yaalla ma laha yaan waqti laydinkaga dhumin shacabka soomaaliyeed ee sharafta lahow yaan laydin been guurin kuwa fulayga noqdana waxaan leeyahay ka soo noqda waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo gabagabeeyo tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan annaga inteenaan meesha taagan iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto wanaagsan kuwa horaan nahay tacaawanuu cala albiri waataqwaana kuwa kalene waxay isku kaalmaysteen waa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan adiga inteed joogtaa marka labadaas kaamaa furane kaamka saddexaad ood joogi kartid waa xaggee kaam saddexaad oo meeshaas ka furan ma jiro walaalaha soomaaliyeed ee sharafta badan meel kastaa joogaan waa u mahad celinaa kuwa banaanka u soo istaagay muxuu ahay la dagaalanka al-shabaab ee xooggooda iyo xoolahooda iyo caqligooda ugu soo istaagay in badanana aayaadka muxuu ahay qur-aan kariimka ay ka hadleen kuwa u soo istaaga banaanka difaacidda dowladnimada difaacidda diinta difaacidda dadka intaasaan isku bahaysan intaa iskula jirnaa waa intaasina qof xumaan meel ka soo geli karta ama mid kamida inuu xun yahay noo sheegi karta ama nagu qanci kartahay ma jirto aad iyo aad ayaa umahadsantihiin guusha waa soo dhowdahay in yaraa noo dhiman adkaysigeenna inaan sii kordhinaa la rabaa aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu